So it's my official channel. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. An important story, sheeko muhiima about an old man oo ku saabsan nin da' ah ama duq ah. There was an old man, waxaa jiri jiray nin duq ah. His name magaciisu waxa uu ahaa Mr. Tom. He had waxa uu lahaa a big house, guri weyn, but he was staying only, laakiin waxa uu la joogo kaliya with his wife, xaaskiisa. They had waxa ay lahaayeen one dog, Calais, whose name kaasoo magaciisa uu ahaa Taga. The dog was 3 years old, waxa uu jiray 3 sano. Taga was a tall and strong dog, waxa uu ahaa ay dheer oo xoog leh. Whenever they were going out, mar walba ay aadayeen bannaanka, they used to leave him loose, waxay ugu tegi jireen asagoo xarigga u dabacsan yahay, in the compound, deerka guriga. On seeing him, marka la arko loose inuu xarigga u dabacsan yahay, nobody dared, cid ku dhiiranayd ama ku dhici kartay to come inay timaado near the house, meel u dhow guriga ma jirin. One day, maalin maalmaha ka mid ah, Mr. and Mrs. Tom went, waxay aadeen out, bannaanka ay aadeen. But unfortunately, laakiin nasiib xumo, they forgot, waxay iloobeen to leave Taga loose, inay kaga tagaan Taga eygii oo xarigga u dabacsan yahay. As one of the passing men, markii mid ka mid a raggii meesha marayay, did not see, uusan arkin Mr. Tom and the dog iyo eygiiba, he went in, waxa uu u galay slowly, si tartiib ayuu guriga u galay. He broke open one of the window panes, waxa uu jabsaday ama jebiyey mid ka mida daaqadihii, muraayadaha daaqadihii. And started, wuxuuna bilaabay pulling things, inuu kasoo jiido waxyaabaha ama sheeyaha from the room, qolka uu kasoo jiido. On hearing this noise, maqalka uu maqlay sabaxankan ama shanqartan uu maqlay, noise buuqa ama sabaxanka uu maqlay eygi Taga started, waxa uu bilaabay barking, inuu ciyo, and jumping, uuna u boodo up and down, kor iyo hoos. As he was strong, a dog, siduu ahaa ay xoog leh, he managed, wuxuu maaraystay to break, inuu goosto ama jebiyo the chain, silsiladii uu ku xirnaa. On seeing the dog coming, markuu arkay eygii oo imaanayo, the man, ninkii, started, waxa uu bilaabay running, inuu cararo, without taking anything, asagoo aan waxba qaadan. But Taga chased him, waa uu ceyrsaday, and jumped over him, wuuna ku booday. At this time, waqtigan, as 2 policemen, laba nin oo police ah, passing, marayo nearby, meel aad ugu dhow guriga. They rushed, way kusoo degdegeen ama kusoo carareen there, halka, and arrested, waxayna xireen the man, ninkii. Taga went back, wuxuu dib ugu laabtay to his house, gurigiisa, and waited, wuxuuna sugay for his master, sayidkiisii, ninkii iska lahaa isaga. Improve your pronunciation. Improve your pronunciation. An important story about an old man. There was an old man, his name was Mr. Tom. He had a big house, but he was staying only with his wife. They had one dog whose name was Taga. The dog was 3 years old. Taga was a tall and strong dog. Whenever they were going out, they used to leave him loose in the compound. On seeing him loose, nobody dared to come near the house. One day, Mr. and Mrs. Tom went out, but unfortunately, they forgot to leave Taga loose. As one of the passing men did not see Mr. Tom and the dog, he went in slowly. He broke open one of the window panes,
and started pulling things from the room. On hearing this noise, Taga started barking and jumping up and down. As he was a strong dog, he managed to break the chain. On seeing the dog coming, the man started running without taking anything, but Taga chased him and jumped over him. At this time, as two policemen passing nearby, they rushed there and arrested the man. Taga went back to his house and waited for his master. Alif lo kondabe, alif lo